Waxaan tegaynaa tuulo lagu magacaabo Daalikumbe taasoo ay ku nool yihiin bulsho ka duwan dadka. Tuuladani dadka ku nool labadii qof ee wada socda ama wada joogaaba qof ayaa indhaha naafo ka ah. Halkani waa Nawajid, caasimadda dalka Mauritania. Waa waddanka ugu dalxiisayaasha yar. Nawajid waa caasimadda dalka Mauritania taasoo si ku meel gaara loo dhisay markii hore inay degaan u noqoto dhowr kun oo qof. Laakiin 1970-nadii ayaa waxaa si xawli ugu soo badanayay dadyow ka imanaya tuulooyinka oo imanaya dhanka caasimadda, iyadoo ay taasi ugu wacan tahay abaaro ba'an iyo sidoo kale dhulkii oo noqday mid aan waxba laga beeran karin. Waana sababta ku khasabtay inay ka yimaadaan tuulooyinkoogii oo ay yimaadaan dhanka caasimadda. Waqtigan la joogo Nawajid waxaa degan in ka badan 1.2 milyan oo muwaadiniin ah. Caasimadda ayaa hadda noqotay meel ay bulsho dhaqamo kala duwan iskugu yimaadaan, kuwaas oo ay ka mid yihiin dadyoga reer guuraaga ah loo yaqaano Mooriga, Wolofka, kalluumaysatada iyo sidoo kale dadyo ka yimaada gobollada gudaha dalka. Halkani waa suuqa ugu weyn ee loo soo adeeg doonto, xagga dadka qaarna u shaqo yimaadaan si ay nolol maalmoodka ugala soo baxaan. Halkana sidoo kale waa suuqa ugu weyn Mauritania ee lagu iibiyo geela. Neef kasta oo halkan ku jira waxa uu leeyahay sumad gaara, sumadaasi oo sheegaysa qabiilka iskale neefka. Inta aan la gaarin saxaraha Daalikumbe waxaa la sii maraa magaaladani. Waa magaalo ganacsiya taasi oo dadku ka gudbaan sidoo kalena safaradu ku hakadaan si ay ugu nastaan. May arkin dalxiistayaal weligood sababta oo ah dalxiistayaashu halkan ma yimaadaan sababa la xiriira amniga. Bartani waxay ku sameeyaan jaajuurka guryaha lagu dhiso iyaga oo siinaya midkiiba ama ku iibinaya $4 oo dolarka Mareykanka ah. Dadkan ka shaqeeya waa dad Aratini ah. Aratiniguna waa dad ahaan jiray addoomo balse hadda xorriyadoodii leh. Hadda ayaan soo gaarnay tuuladii la odhan jiray Daalikumbe. Marka ugu horreysa waxaan booqanaynaa odayga ugu weyn tuuladani sidoo kalena maamula si aan ugu sheegno waxaan u soconno una waraysano. Odaygani waxa uu sheegay in tuuladani bilaabantay 10 jiil ka hor, waxayna ka bilaabantay hooyo uur leh. Riyo ay ku riyootay ayaa waxaa loo sheegay inay dhali doonto wiil dabeecad wanaagsan, aaminna ah balse indhaha naafo ka ah. Ilaa waqtigaasi wixii ka dambeysay bulshadani oo dhan waxa adarkaso ayuu dhalay. Waxa kale oo uu sheegay isaga aabihii inuu indhaha naafo ka ahaa oo la oran jiray Sheekh Maxamed Maxamuud, waxaanu ahaa ninkii aasaasay ilaha biyaha laga helo ee Mauritania. Waxa kale oo uu sheegay inuu yahay imaamka masaajidka tuuladani. Waxaan weydiinay sida uu ku bartay Quraanka Kariimka maadaama uu indhaha naafo ka yahay. Waxa uu yidhi waxay qaadatay waqti dheer, waxaan u tegay buu yidhi macallimiinta Quraanka barta ardayda caadiga. Macallinka ayaa waxa uu qoray aayadaha Quraanka, kabacdi waxaan isku dayay inaan akhriyo, waanan ku celceliyay ilaa aan ka xifdiyo Quraanka oo dhan. Allahu akbar. Waxa kale oo la weydiiyey inuu gebi ahaanba waxba arkaynin mise inuu waxyaabaha qaar arki karo sida iftiinka oo kale. Wuxuu ku jawaabay waxaan dareemi karaa ayuu yidhi ama aan dareemi karnaa haddii wax noo dhow yihiin, hase ahaatee waxba sideeda uma arki karno. Tani maaha sheeko, laakiin waa dad dhab ah oo dunida meel kaga nool. Waxaad kaga faa'iidaysataa dadkaasi iyaga oo noloshoodu sidaa tahay haddana waa ay ku qanacsan yihiin, sidoo kalena ma aysan joojinin xiriirka Alle. Maalin wanaagsan.